ururka qurba-joogga reer Somaliland ee dugsi ee fadhigiisu yahay dalka Holland ayaa deeq lacageed oo dhan $5,000 soo gaarsiiyay isbitaalka dhimirka ee magaalada Gabiley. deeqdaasi lacageed oo maanta si rasmi ah ugu wareejiyeen maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo mas'uuliyiinta ururka Samakaal. waxaan ugu horreyn halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah qurba-joogga reer Somaliland oo deeqdani wareejinayay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa. waxaan halkan horta aad iyo aad uga salaamayaa dadkii reer dugsi iyo sicibkii reer Holland ee qaybta badan igala soo qaatay hawsha tan iyada ah gudoomiyaha deeqa Faarax gudoomiyaha ku-xigeenka Maxamed Axmed xisaabiyaha iyaga oo reer Gabiley ma sha Allah haduu maanta ay maqlayo Axmed dhamaantood horta waxaan halkaas ka salaamayaa waxaan kaloo mahad aad u sharaf badan u soo jeedinayaa maamulka sharafta leh ururka tahay oo kale xusuusta iyo muhiimaddu waxay tahay in ummadeena iyo dadkeena wax loo qabto waxaan rajeenaynaa haddii aanu nahay qurba-joogga kale iyo haddii aanu nahay ururka dugsi iyo mid kastaba inaanay tani noqon tii inoogu dambeysay ay noqoto inaanu mar kasta cusbitaalkeena sidoo u maridhari lahaa haddii dhismihiisa tahay iyo hadday tahay qalabayntiisa dambaba. Barsaab ku-xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdilaahi Cali Case iyo maayarka magaalada Gabiley Shacay Maxamed Muuse oo iyana hadallo kooban halkaasi ka jeediyay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa. maalin qiimo leh oo aad iyo aad runtii aan u faraxsanahay maadaama oo waxa weeyaan hablo reer Somaliland oo u dhashay gobolka Saraar ee jaaliyada ah maaragtay dalka Netherland ay deeq u sidaan isbitaalkii dhimirka Gabiley. maanta halkan noogu yimid ururka dugsi ee ka yimid Netherland Holland oo runtii maanta deeq inoogu sida isbitaalka dhimirka aad iyo aad baa runtii ugu mahadnaqaya. sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi hadallo kooban ka jeediyay xubno ka tirsan ururka Samakaal ee gacanta ku haysta dhismaha isbitaalka dhimirka ee magaalada Gabiley iyo mas'uuliyiin aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin qaashi waxgaradka gobolka Gabiley oo dhamaantoodba mahadnaq ballaaran u soo jeediyay qurba-joogga reer Somaliland ee dalka Holland gaar ahaan ururkani deeqda maanta soo gaarsiiyay isbitaalka. waa Nimcaan Dheeg Ibrahim TV qaranka Gabiley.